bixi uu dib u soo magacaabo laakiin wasiirka hore wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Cumar Shucayb Maxamed waxa uu qaaday talaabo ka duwan labadaasi saaka waxa laga qaaday tamaandhada la qaaday 6 foosta laga qaaday oo tamaandha basbaaska laga guraa barbarooniga laga guraa basasha waa tan waa diyaar imika tan waxa weeyaan diyaar bay u tahay in la qaado wana aragtay marka basasha waa nooc ugu wanaagsan nooceeda fiican Ethiopia leenaga kanatiina ka fiican 100% ka waaweyn xitaa darkaysa marka wixii wax soo saarban samaysan karnaa waan soo goyn karnaa beer waxa uu beer dalagyo kala duwan laga beero ka samaystay deegaanka Sheelane oo 730 kiiloomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Berbera inkastoo beertu ay hore u jirtay laakiin hadda waxa uu fursad u helay 3 maalmood oo toddobaadkii kamid ah uu ku maqnaado oo gacantiisa ula tago hawsha beertiisa ayaanu ku booqanay waxaanu uu iga waramay waxyaabaha beerta ay ka beeraan waxaan ugu talagalnay beertan 3 arrimood inaanu ka beerno qaybta khudaarta iyo vegetables ka sida aragto khudaartan maxay tahay ka beerinaba ka baxda arkayso iyo qayb loogu talagalay iyadana ah aanu animal feed ka oo xoolaha loogu talagalay oo doogi iyo waxyaalaha loogu talagalay aanu ka beerno qaybta saddexaadna waxay noqonaysaa qayb xoolaha marka mixed farm doonina ka dhigno wasteedii 60 hektar marka mixed farm doonina ka dhigno beertana waa beer runtii maalgashan ku sameeynay oo aniga iyo deerar kale aanu hawsha qabanay weey Cumar Shucayb waxa uu aaminsan yahay in dadku beera falashada ay u dhaqaaqaan si Soomaaliland ay u gaadho isku filnaansho dhinaca wax soo saarka hadiye jeer imika sixir barbeena ku jirnaan wasiirka ganacsiga wanaha dadku hadaan waxba soo saareenin oo wadankan waxba laga soo baxayn ma noqonayso ma jabay waa lacag kale meelkii la keenmayno way inagu waxaan soo iibsanaa baash tamaandhada imika arkayso waxaan ka soo iibsanaa maxay tahay Ethiopia ka timaad imika saa wadankan uga baxaysa aad arkayso samad garan khudaarta nooc walba ka baxaya basasha ku tusdoona babayga ka baxaya wax walba ka baxayaan meesha marka dadkii tamarun baa loo baahanyahay waxay macni ku shaqeystaan marka imika aanu hargeysan geeyo khudaarta waxaan weydiiyay caqabadaha haysta ee ka awooda weyn isaga iyo beeralayda kale aynigiisa anaga imika mushkiladan haysta waxa weeyaan aqoon baan jirin anu beera aqoon ma lihi waan ka shaqeeyaa wanaga wadna beerayna laakiin waxaan u baahanahay in aqoonta lagu soo kordhiyo marka dadku waxay u baahan yihiin hay'adaha maalgashiga ee wax maalgeliya iyo dadka kale maxay tahay wasaaradda qudheeduba inay empower garayso oo wax badan ka qabato markaas dadna wax soo saar runa la heliya sidoo arkaa saaxiibadiisii ay marxilka ka wada dageen aan waxaan aaminsanahay qofkii islaam markaas siyaasaddu kaliya ku xidhantayna halkii siyaasaddu buu taagnaa meel gidaaradu iska taagnaanaya meel hadda shacabku iska badnaanaya laakiin aan waxaan qabaa dadku inay initiative la yimaadaan iyo shaqo abuur dhinaca waraabka ma roob bay beertu ku baxdaa oo xilli roobaadka ayaad wareysan kastoo mise waa wax ceel bay qodaan alxamdulillah anigu maaha beer roobaad maaha beertan waa beertan waxaan ka soo qodnaa ceel halkan oo intustoono meel halkan oo iska wabiya marka biyaha waan qodnay cagaftaasaan ku qodnay oo in badan ku jarnay meel weyn aan qodno iska xara oo kala weeya marka dhinacii shaqo abuurka inteen leeg baa ka shaqeysay shaqaalaha waxa ka shaqeeya imanka 6 baa laga ka shaqeeya dawana 6daas waxa weey dad xaasas leh oo dhalinyaro way isku soo dhaxnul marka qoysas fara badan baa runtii ayaa beertan ku nool ugu dambeyn